Sture Center oo ah santarka laga dukaamaysto ee ugu weyn magaalada Oslo kuna yaala bartamaha magaaladaasi ayaa lagu soo waramayaa in maalinnimadii Saaka oo Isniin ahayd ay ka dhacday rasaasta oo argagax iyo weliba kala carar ku riday dadkii ku sugnaa gudaha santarka iyo sidoo kale ganacsatadii dukaamada iyo goobaha kala duwan ee ganacsiga ku lahaa santarkan. Taliyaha goobta Tom Berger ayaa isagu ku waramayo in la soo wacay ka hor inta aysan rasaasta ka dhicin. Waxa uuna taliya Tom sheegay in uu soo wacay wiil 19 jir ah oo ah hadda tuhmanaha lagu tuhmayo in uu rasaasta ka riday santarka weyn ee ku yaala bartamaha Oslo. Waxa uuna sheegay in uu booliiska la hadlay oo uu sheegay in uu hubeysan yahay. Waxaana jirtay ayuu yiri taliyaha in uu jiray wada hadal dhexmaray wiilkan iyo booliiskii uu soo wacay. Ayeeshee markii dambe uu khadka damiyay dabadeedna uu bilaabay in uu rasaas ka dhex rido santarkan. Booliiska ayaa sheegay markaa in ay wadada ku soo jireen. Ayeeshee intii ay ku soo socdeen santarka laga soo wacay jihooyin kala duwan kuwa oo ku wargelinaya booliiska argagaxa iyo kala cararka ka jira santarka iyo rasaasta ka dhacaysa. Taliya Tom ayaa isagu sheegay markii ay goobta soo gaareen in ay xakameeyeen wiil 19 jir ah ka oo ah tuhmanaha ay hadda kiiskani u xireen. Waxa uuna taliyaha howlgallada booliiska Tor Gruston isaguna sheegay in markii ay soo gaareen santarka ay ka saareen dadkii ku jiray iyaga oo bilaabay baaritaan guud oo ay ka sameynayaan gudaha santarka kadib markii ay ka soo saareen ganacsatadii iyo dadkii kala duwanaa ee shacabka ahaa ee ka dukaamaysanayay santarka weyn. Waxa uuna intaa ku daray in wiilkan 19 jirka ah goobta lagu xiray waxayna booliisku baareen haddii ay jiraan dad kale oo hubeysan oo santarka gudihiisa ku jiray. Ayeeshee waxa uu sheegay inaysan helin cid kale oo ay u soo qabteen wiilkan oo kaliya. Intaa waxaa dheer oo ay booliisku sheegeen inaysan jirin cid ku dhaawacantay dhacdadan foosha xun ee ka dhacday magaalada Oslo santarka ugu weyn. Taliya Tor ayaa intaa ku daray in ay goobta ka soo qabteen qori iyo sidoo kale mindi iyo weliba bud aad u weyn ka oo la malaynayo in uu wiilkan sitay. Wuxuuna booliisku intaa ku daray in ay baaritaan xoogan hata wadaan. Uni Asgard oo ah maamulaha santarkan ayaa sheegtay in marka ay rasaastu dhacaysay ay ku sugnaayeen qol sare oo ay ku shirayeen kooxda maamusha santarkan. Waxa ayna intaa ku dartay in ay aad uga argagaxday markii ay soo baxday waxa dhacayana ay la yaabtay ay aragtay rasaas iyo kala carar goobta ka dhacayso. Waxayna sheegtay in ay markaasi dadweynihii goobta ku sugnaa ay bilaabeen in ay ka kala cararaan iyo sidoo kale dadkii dukaamada ku lahaa. Waxayna sheegtay in ay halkaasi ka daareen alarmiga qaylada dheer si dadku ay u kala cararaan oo aysan dhibaato aad u culus goobta uga dhicin. Maamulaha guud ee Sture Center oo lagu magacaabo Egan Sture ayaa isaguna sheegay in ay arintani ku riday argagax ka dhacday santarkooda. Waxa uuna intaa ku daray in ay hay'adaha amniga iyo booliiskuba ku wareejiyeen wixii ay duubeen kaamarooyinka kala duwan ee ku yaala santarkaas iyo sawiradii ay qaadeen si ay kiiskan baaritaankiisa qayb uga noqoto. Taliyaha howlgallada booliiska Tor Gruston ayaa isagu sheegay in dadweynihii goobta ku sugnaa oo ay ka soo saareen iyo kuwii markhaatiyaasha ahaa ee goobta ku sugnaa ay wax ka weydiiyeen sida ay wax u dhaceen iyo dhacdada waxa dhacday iyo waxa ay indhahooda ku arkayeen. Booliiska ayaa sheegay in ay arrintan baaritaan ka fureen. Waxa uuna booliisku intaa ku darayaa in aysan hadda faahfaahin dheeri ah ka bixi karin maadaama baaritaanku uu yahay mid bilow ah. Magaalada Oslo ayaa dhacdooyin kala duwan oo rasaas iyo qaraxyo iyo weliba torreeyo la isku adeegsado waxa ay ka dhacayeen muddooyinkii ugu dambeeyay. Booliisku ayaa sheegay in ay aad ammaanka goobta u ilaalinayaan santarkana uu hadda amni yahay oo ay ka codsanayaan ganacsatada iyo dadweynaha ka dukaamaysanayaba inay si caadi ah u isticmaalaan. Maamulaha santarkan ayaa isaguna sheegay in ay istiraatiijiyad amniga lagu xoojinayo oo santarkan ku saabsan ay hadda wixii ka dambeeya ka fikirayaan si loo adkeeyo amniga dadka dukaamaysanaya iyo ganacsatada dukaamada kala duwan iyo goobaha kala duwan ku leh santarkan. Dhacdadan ayaa waxa ay argagax iyo la yaab ku noqotay dadweynaha kala duwan ee ku nool magaaladan caasimada u ah wadan ka mid ah wadamada ugu nabdoon dunida ee Norway. Waxaana lagu soo waramayaa in booliisku ay hadda heegan ku jiraan iyaga oo diyaar u ah dhacdooyin walba oo amniga iyo xasiloonida wax u dhimayo sidii ay uga hortagi lahaayeen. Halka warka kuwiisa ugu door karoon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway. waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.